mahuranka xolaha kulanti waan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkeena xanaanada xoolaha toddobaadkan waxaanu ku soo qaadanaynaa waxqabadkii wasaaradda xanaanada xoolaha ee sanadkii tagay qaybteedii labaad waxaana istuudiyaha radio Hargeysa marti noogu ah Dr. Ibrahim Maxamed Kaahin Ibrahim Dhuxul oo arintaasi faahfaahin ka bixinaya waxa kale halkan aanu doonaynaa inay nagala soo xidhiidhaan sida caadadu ahayd xoolo dhaqatada iyo cidii kala doonaynaysa inay waxqabadka inay su'aal naga soo weydiiyaan waxaad nagala soo xidhiidhaan si caadadu ahayd radio Hargeysa Victoria haye inagoo galayna qaybtii labaad ee waxqabadka bal hadda ka waran halkii bay nooga sii soconaysaa haye su'aasha koowaad Faisal Xuseen aad u mahadsan tahay waxqabadkii wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga ee Jamhuuriyadda Soomaaliland taasoo garwadeen ka yahay wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha Saciid Sulu Maxamed wasiirka ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha Mujaahid Marwo Yurub Ayib Cabdi agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha Dr. Axmed Cali Maax Warsame wasaaradda xanaanada xoolaha oo qaranka Soomaaliland ugu yimid horumarinta xanaanada xoolaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo ilaalinta kheyraadka badda kalluunka sidoo qeexayo xeerka xanaanada xoolaha Soomaaliland xeer 2006 xeer 2006 sidoo kale sidoo qeexayo xeerka ilaalinta ama kala xadeynta hay'adaha madaxa bannaan iyo xukuumadda ee xeer 7/2015 sidoo kale sidoo qeexayo xeerka kalluumaysiga ee Soomaaliland xeer 84/2018 wuxuu qeexayaa shaqooyinka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga iyadoo qaranka uga mas'uula wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga waxay sanadkii la soo dhaafay 2021 hirgalay kormeero lagu sameeyay dhammaan gobolada Jamhuuriyadda Soomaaliland kuwaas oo sameeyeen mas'uuliyiinta ugu sarreeya wasaaradda xanaanada xoolaha oo ugu horeeya wasiirka wasaaraddaasi Saciid Sulu Maxamed sidoo kale waxaa jira kormeero ay sameeyeen waaxidada wasaaraddaasi oo ugu horeeya agaasima ku-xigeenka waaxda xanaanada xoolaha Cabdiqani Xamed Cawaale agaasimaha waaxda wax soo saarka ama productionka Mawlid Cismaan agaasimaha waaxda qorsheynta Farxaan Axmed iyo agaasimaha waaxda IT-ga Xasan Jaamac sidoo kale waxaa la sameeyay tallaal iyo daweyn dhowrkii bilood ee ugu dambeeyay waliba sanadka 6 bilood ee ugu dambeysay kuwaasoo lagu fuliyay gobolada Soomaaliland sida Saylac Awdal Gabiley Maroodi Jeex Hawd Saaxil Togdheer Buuhoodle Saraar iyo Soob Sanaag iyo Badhan kuwaasoo lagu tallaalay aray qiyaastiisu ay dhan tahay 5,5,419 neef dhammaan gobolada waxaa loo qaybiyey qaboojiyayaal iyadoo wasaaraddu ka duulaysa hagaajinta iyo tayeynta dawada ee taalla istoodhada gobolada sidii loogu ilaalin lahaa meel tayadooda sidoo kale waxaa loo qaybiyey qalab ku shaqaynaya cadceedda oo qalabkan solarka oo cadceedda ka dhalinaya cadceedda u bedelaya light la isticmaali karo sidoo kale waxay wasaaradda xanaanada xoolaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ay samaysay qaybin xoolo gobolada ay ka mid ka yihiin gobolada Soomaaliland ee bariga iyo kuwa galbeedka xoolo qaybintaas oo soconaysa 2 sano waxaana laga maalgeliyay sanduuqa wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga sidoo kale waxaa la sameeyay mashruuc tijaabinta calafka xoolaha iyo oo kaasoo tababar loogu sameeyay dadka sida loo ridqo kaasoo laga hirgeliyay banka Wajaale tababarro loo sameeyay dadka xoolo dhaqatada beeralayda ah taasoo lagu tababaray hababka casriga ah ee diyaarinta iyo kaydinta calafka xoolaha xog ururin laga sameeyay beeraha lagu dhaqdo digaaga ee ku yaala Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaana laga diyaariyay xog ka warbixinaysa xaaladda ku gadaaman beeraha digaaga lagu dhaqdo iyo sidii looga hortagi lahaa khataraha ka yimaada sidoo kale wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga oo uga mas'uula qaranka ilaalinta iyo horumarinta kheyraadka badda waxa ay agaasimaha waaxda horumarinta kalluumaysiga ama waaxda kalluumaysiga oo horkacayo agaasimaha waaxdaasi Ismaaciil Mira Faarax waxay samaysay qaybin doonyo ay u qaybisay gobolada gaar ahaan degmooyinka xeebaha sida degmada Saaxil
degmada Maydh, degmada Saylac, Bulxaar, Cabdi Geedi iyo qaar kale badan. sidoo kale xarumaha waxaa loo sameeyay xarumo dabka ka dhali kaydinta barafka lagu kaydiyo. sidoo kale waxaa loo qaybiyey gobolka Saaxil xarumaha iyo degmada Maydh iyo gobolka iyo degmada Lughaye doomo lagu tababarayo kuwa halkaa jooga ee wadayaasha doomaha. sidoo kale waxaa ay wasaaraddu hirgelisay oo waaxda kalluumaysiga ay ku tallaabsatay in laga furay gobolka Saaxil geerish u hagaajinaya noocyadii doonyaha u hagaajinaya qolooyinkii kuwan ku shaqaystay laasha kaasoo ay si free ugu hagaajinaya. sidoo kale wasaaradda xanaanada xooluhu waxay barafka qiimo jaban kaga iibisaa soo saarayaasha ama kalluumaysatada barafka kalluumaysatada ka ganacsata kalluunka waxaa qiimo jaban laga iibiyaa barafka. waaxda dayactir lagu sameeyey dhismayaasha gobolada Togdheer, Boodweyne, Sanaag, Sool, Balligubadle, Maroodi Jeex taasoo maalgelintooda ay maalgelisay wasaaraddu ugu yaraan 40 xarumood. qaarkoodna gobolada Somaliland waxaa la siiyey gawaadhi si loo fududeeyo howlaha qaranka ay hayso wasaaraddu. sidoo kale waxaa jira konton dhakhtar oo waaxda xanaanada xoolaha ee wasaaradda oo horkacaya agaasima ku-xigeenka waaxdaasi ahna kusimaha waaxda. waxay waaxda ka samaysay ilaa konton dhakhtar in lagu tababaray sida loo sameeyo tababar lagu siiyey data collectionka ama xogta sida loo soo qaado iyadoo qalab la siinayo qof walba gobolka jooga xanuunadii halkaa ka helay uu soo gelayo dadna sidaa xarunta saa lagu wada soconayo. sidoo kale waxaa dib hagaajin iyo dayactir lagu sameeyey xarumaha degmooyinka. sidoo kale waxaa dib hagaajin iyo dayactir lagu sameeyey xarumaha degmooyinka ay ka kooban tahay gobolka Maroodi Jeex ee hoos yimaada 9 degmo. 9 degmo oo kala ah xarunta Laaskeel, Salaxley, Daarasalaam, Faraweyne, Cadaadley, Sabawanaag, Ballimataan iyo Dacarta. waxaana xarumaheedii imka si caadi ah loo furay degmada Faraweyne oo dibudhis casriyeyn lagu sameeyey. sidoo kale imka waxaa socota degmada Salaxley oo insha Allah dhawaan xadhig laga jari doono. wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga oo ka duuleysa horumarinta xoolaha Jamhuuriyadda Somaliland waxa ay samaysay in ay dhigtay jabooyinkan haleeya dhakhaatiir jeegta lo'da iyo ariga kale laga keeno gobolada galbeedka sida Wajaale iyo gobolka Awdal iyo Gabil. sidoo kale wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga gaar ahaan qaybtan Maroodi Jeex waxay ku tallaabsatay muddadii imika hawshu ay sanadkii tegay in dardargelin lagu sameeyo shaqadii xarunta gaar ahaan iyo shaqadii sayladda iyo shaqada kawaanka. kor u qaadidda lagu sameeyey nadaafadda kawaanka. wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga sanadkii tegay 2021 waxay ku tallaabsatay gaar ahaan waaxda IT-gu mas'uuliyiinta wasaaraddaas oo horkacayo waaxdaas oo horkacayo Xasan Jaamac Xasan agaasimaha waaxda IT-gu inuu kormeer ku sameeyay dhammaan 14 gobol ay ka kooban tahay Jamhuuriyadda Somaliland isagoo dayactir ku sameeyay kombiyuutarada yaala xarumaha degmooyinkaas waaweyn ee gobolada si shaqada wasaaradda loo dardargeliyo. iyadoo qalabayna ku samaysay qaybo ka mid ah xafiisyadaas ay ka mid yihiin gobolka xafiiska Awdal gobolka xafiiska Awdal magaalada Boorama gobolka Hawd ee Balligubadle iyo gobolka Saaxil gaar ahaan degmada Sheekh. waxaana laga shaqaysiiyey oo active laga dhigay bahashii security-ga ilaalineysay ama CCTV kamarada wasaaradda taasoo imika si fiican hawsheedii u gudanaysa. isuduwaha wasaaradda xanaanada xoolaha ee gobolka Awdal Dr. Cumar Cabdilaahi Maxamuud wuxuu sameeyey kormeero ku tagay ilaa 25 goobood oo meelaha lagu sameeyo mashruuca calafka xoolaha kuwaasoo iska kaashanaya wasaaradda xanaanada xoolaha iyo hay'adda FAO. Dr. in calafka xoolaha ee aad sheegteen hadda abaar baa jirta miyana hayn in xoolaha maadaama calaf xoolood yahay oo gacanta ku haysaan in loo geeyo xoolahan la leeyahay abaar baa ka jirta bariga si ay nafaqo fiican ay u helaan. naafay arrinkaad sheegtay waa mid muhiim u jira. wasaaraddu mas'uuliyaddu iska saartay wixii calafee loo helo ama banka Wajaalaha ka soo go'o ama gobolka Awdal laga keeno markaa gobolkaasi uu ka maarmi karo. wasaaraddu waxay u leedahay waajib inay geyn karto gobol kale oo xaaladda ku jirta ay ku caawin karto ama wax kaga qaban karto. midda kale maxaa laba gobol oo kaliya in laga beero ugu talgalay gobolladeena gobol kasta lagu ka baxayaa
maxaa loo ballaadhi waayey wuu ka jiraa gobollada kale bariga wuu ka jiraa sida gobolka Sanaag oo kale mashruuca lagu horumarinayo calaf markaa kuma koobna labadan gobol oo kaliya waxqabadadii sanadkii hore la qabtay sanadkii 2021 ee ku tallaabsatay wasaaradda qaybteeda gobolka Gabiley Isduwa Cali Bashiir waxaa ka mid ahaa in daweyn iyo tallaal loo sameeyey xoolaha ku nool deegaamada gobolka Gabiley sidoo kale waxaa loo sameeyey xoola qaybin ama dib u xoolayn bulshada ku nool degmooyinka hoos yimaada gobolkaasi iyo sidoo kale in la dardargeliyo kor loo qaaday kawaanada meelihii ay xooluhu ka dhoofayeen ee ku yaalay degmada Wajaale iyo Gabiley kor u qaadid lagu sameeyey fardhoorka hilibka iyo caanaha ee xarunta Gabiley iyo Wajaale marka Gabiley ma shaybaad baa yaala caanaha lagu shaybaad haye sidoo kale waxay wasaaraddu ku tallaabsatay sanadkii hore dhismaha kawaanka gowraca xoolaha ee laga dhisay degmada Wajaale sidoo kale waxay ku tallaabsatay dhismaha sariibada caanaha oo ay hirgelis iyo hilibka ee degmada Wajaale sidoo kale waxay hirgelisay sariibada caanaha ee Kalabayd dayactir lagu sameeyey kawaanka Gabiley dhismaha sariibada caanaha ee gobolka Gabiley dhismaha harka dameeraha gobolka Gabiley meel ay harsadaan dameeruhu oo laga dhisay degmada Gabiley sidoo kale deeriya xaynta waxa laga sameeyey banka Wajaale beerta xarunta calafka xoolaha ee gobolka Gabiley waxqabadadii wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga ee sanadkii tagay ee 2021 ku tallaabsatay waxaa ka mid ah kor u qaadidii ilaalinta iyo wacyigelinta xuquuqda xoolaha gaar ahaan gamaanka ama dameeraha gamaanka oo ku jira bahda dameeraha oo ku jira bahda gamaanka taasoo laga sameeyey wacyigelin taasoo laga sameeyey daweyn oo wasaaraddu ay u samaysay daweyn firiya oo inta loogu tago meelaha police stationada ay dameeruhu joogaan ama meelaha laga rarto sida Wajaale iyo Gabiley aadka looga isticmaalo iyo gobolka Awdal xeer hoosaadyo laga soo saaray oo dhaqangala laga soo saaray sidii dameeraha looga hortagi lahaa tacadigood ayayna waqti badan lagu shaqayn in calaf ku filan la siiyo in la daweeyo in qofkii ku tacadiya sida sharciga loo horkeeno doctor waxa tiri Gabiley waxa yaala shaybaad ku baadha caanaha wadanka waxa soo gala maalin walba caano qalaad oo ka yimaada maxaa ku dhahdaa galbeedka fog Itoobiya sabab ma marka caanaha shaybaad halkan yaala u qaban waayay horta inkastoo berdhaweed shaybaadka la daahfuray oo sanadkii hore ahaa waliba dhamaadkiisii bishii 7 meelaha balse haddana kolley wixii imika waa laga shaqaysiyaa uu shaqeeyaa wax dee marmar iyo dhif dhaca mooyaan caanuuna imika qaraarhkooda kolley wuxuuba ku yimaada geedaha ay cuneen waliba dee caanaha geelo aad axkaa looga keena inta badan waxay dhahdeen kalinoolo cuna geelo laakiin wasaaraddu halkaa imika hawshaa aad iyo aad bay ugu dhiifoon tahay insha Allah waxna waa laga qabanaya wixii kale halkaa ka soo kordha haddaynu hore ugu sii soconno waxqabadadii sanadkii tegey ee 2021 ka hirgalay wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga ayaynu sheegaynay ka hortagga tacadiyada lagula kaco ama ku dhaca dameeraha waxaa la sameeyey kulamo ku saabsan bulshada kuwaasoo isugu yimaadeen dowladda hoose isugu yimaadeen waaxdii booliiska ku yaallay xaafadaha isugu yimaadeen wasaaradda xanaanada xoolaha oo ay dibadda ka waday iyo haldoorkii bulshada iyo qaybtii sharciga taasoo la iska kaashanayo in meel looga soo wada jeesto tacadiyada ka dhanka dameeraha dadka ku shaqaysta sidoo kale waxay wasaaradda xanaanada xooluhu siisay calaf taasi iska kaashay inay hay'adda FIAS German sidoo kale waxay wasaaraddu ka soo rogtay in ganaax ama wax laga qabto qofkii ku tacadiya maalin dambe ama hawshaasoo kale lagu qabto qofkii ku tacadiya dameeraha sidoo kale waxaa ka mid ahaa waxyaabaha horumarka ama laga sameeyey waxqabadkii wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga ee gobolka Salal in loo kala diray tiimam iyo in loo sameeyey xoola qaybin gobolka Seylac sidoo kale in wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga qaybta kalluumaysiga ay ku wareejisay in doomo iyo la siiyey qalab ka dhalinaya barafka ka dhalinaya baraf dhaliya qodobka ku shaqeynaya doctor haddaba in khadkaynu eegaynaa maxaan ku dhahdaa bal hadda waxaan wax ka weydiinaynaa inay su'aalo inaga soo weydiiyaan maya inaga in su'aalo inaga soo weydiiyo bal wax qabadka wasaaradda xanaanada xoolaha hadda imika uu akhriyayo doctorku bal wixii aad wax ka fahanteen ama aad maxaan ku dhahdaa aad faala ka bixin lahaydeen
ayaan doonayaa inaan idinkala xidhiidhno bal khadka ugu horreeya hoodiya nasiibka u yeeshay hallow haa salaamu calaykum السلام ورحمة الله وبركاته. magacaagii halkaad ka soo hadlayso والله أحمد سيد عبد الله كسر هذا يا على حبك. haye فتك سندق من اللي أكيد. doctoorka maxaad weydiinaysaa ma dhegaysanaysay هو اللي يشتري كله. haye dadka waxaan weydiinayaa haa su'aalo badan sax wasaaradda xanaanada xooluhu halkan idaacaddu bay ka soo hadashaa haye weli maanaanay wasaaradda xanaanada xoolaha dhulkan maraysa haye waxaan joognaa degmada aalacad waxay ku taallaa meesha inaad maqashay ceeldharaan iyo carradii dhoor haye ayay ku taallaa haye xoolaha ugu faraha badan shanta gobol ee somalilan iyo ilaa gobolka etoobiya ilaa shilalka shanaad ee xooluhu ka yimaada haye sanad walba halkaa dulin iyo xawayaan iyo xanuun bay kaga tagaan haye markaa dee dhibaatadaas annagu bay nagu dhacdaa haye xanaanada xooluhu hadday og tahay caafimaad dhakhtar caafimaadda bay ka sugnayd halkan haye marar badanna wasaaradda waa nagu dirnay cabashooyin fara badan waa tahay haye markaa hadday dee wasaaradda idaacaddu ka soo hadashoonay dhulka marmarayn halkaasaan wax ka qabanayaane odhan waa koy aad baad mahadsantay ma dhammaysatay may haye caanahan qadhaadhu leeya etoobiya ka imanayaan haa dee xoolu markay geedka qadhaadh cunaan ayuunbay dee caanahooda qadhaadhaadaan horta dadkaan u bayaamin ee geedkaasi ma jiraa la yidhaahdo keli noolaha ee markay cunaan xooluhu ay caanuhu qadhaadhaanayaan haa anigu etoobiya waan tegey halkan wuu ka baxaa waa geedka etoobiya inooga yimac halkan imika soo gaadhay caani xoolu marka cunaan geedka lo iyo geelba caanihiisu way qadhaadhaan sidii geedka ila shiishaba haye oobe haye markaa dadku iyaanay soonin xoolaha waxaa laga soo lisay wax kale caanaha iyaan la soonin wax kaa laga soo listay haye inaan wasaaradda lafteeda dee halkaasaan wax ka qabanay iyaanay odhanine dee degme inay u soo eegaan bay hayday xoolaha caafimaadka ilaan xoolu waa lafdabartii dalka ee la socdaan bay hayd aad baad u mahadsantahay soomaad dhammaysan haye doctore aad buu mahadsan inaan ka soo hadlay degmada calaacadda haa horta caqabada way iska jirayaan kolley waxqabadkuna kolley waa socdaayo dee maalin dhan lagu istaray insha allah hadduu ilaahay ka dhigo waxaan rajeynayaa cabashooyinka ka soo yeedhaya marmar ka soo yeedha gobollada somalilan qaar ka mida insha allah in wax laga qabto waanay wasaaraddu diyaar bay u tahay waana wadaa imika qorshayaashii wax lagaga qabanayay insha allah inay sii laba jibaarto waxaa jira tiimam aad u fara badanoo sanadkan imika tegey iyo imika damba wasaaradda xanaanada xooluhu ay u kala dirtay gobollada bariga ee galbeedka dowladda somalilan qaarna insha allah hadduu ilahay ka dhigo imika dhowaanahan bilahan soo socda la diraayo kuwaasoo mar kasta markuu soo sheego gudoomiyaha degmadaasi ama isuduwaha gobolkaasi soo sheego xaalad ka taagan gobolka ay wasaaraddu u dirto oo wax ka soo qabta arrinkaas marka inankaasi arrinkaa uu sheegay insha allah hadduu ilahay ka dhigo wixii wasaaraddu soo kordha ee gobolka soo kordha ama degmo ee ciddaa u joogta ee halkaa ugu yigmalay markaa la soo xidhiidho wasaaradda u sheegto in hawshaa ama xanuun halkaa ka soo cusbaanada ama qof wasaaradda ama qof deegaanka ku noolay wasaaradda la soo xidhiidha wasaaraddu si toos ay uga qabataa insha allah wixii dambena weli dardargelayna insha allah inankan idiin jooga maxaan ku dhahdaa xafiiska gobollada isaga laftigiisa maxaa la gudboon waxaa la gudboon isduwayaasha gobollada madax qaybeedada ama district officers ama degmooyinka kuwa u qaabilsan wasaaradda xanaanada xoolaha inay u dhaganuglaadaan marka u yimaadaan shacabka oo wixii ay u soo gudbiyaan ay u sheegaan caqabada gobolka ka taagan ama uu la kulmay hadduu isagu wax ka qaban karana inuu wax ka qabto haddii kale inuu xarunta isu soo dhaafiyo si wasaaraddii ay waajibkeeda uga gudato wax laga qabto midda kale magaalooyinka inta badan waxqabadkii magaalooyinku waa berbera waa gabiiley waa burco tuulooyinkii xoolaha ay ku noolaanayeenba maydan wax badan ka qabanin doctora sababtu maxay ku dhacday faysay horta dee magaalooyinka waaweyn marka laga yimaado magaalooyinka waaweyn waa si fiican ku fahmay waa xafiisyadii maynka ahaa ama muhiimka ahaa ee laga hagaayey laakiin wasaaraddu gobol kasta imika gobolka saaxil oo kale degmooyinka hoos yimaada ayay wasaaraddu ka howlgasha oo ay ku leedahay oo imika doctoor kasta degmo kasta waxaa lagu asaargeliyey oo wasaaraddu u magacowday qof inaan doctooro halkaa ka shaqaynay wasaaradda oo degmada isagu wasaaradda u qaabilsan gobolkana u qaabilsan oo wixii ka soo kordha wasaaraddana la soo socodsiinaya gobolkii la socodsiinaya gobolkiina hadhow wasaaradda si guud la soo socodsiinaya
markaa gobollada waaweyn wuxuun baa yaalla xarunta maamulka maamul daadejin baa jirtoo la sameeyey oo imka gobol kasta iyo degmo kasta waxay jooga qayb ka mid ah wasaaradda xanaanada xoolaha oo ah madaxii degmada ee wasaaradda xanaanada xoolaha u qaabilsanaa markaa insha allah hadduu ilaahay ka dhigo dee waynu awooddeena waynu kasii labalaabaynaa inamada gobollada la geynaya yaa xisaabinaya doctor inamada wasaaradda gobollada la geynaya waxaa xisaabinaysa wasaaradda xanaanada xoolaha gaar ahaan waaxda caafimaadka xoolaha oo dabagelaysa sidoo kale waxaa jirta waaxda xiriirka gobollada markaa insha allah waa dabdargelaynaa hadduu alla ka dhigo wixii dambe waynu halkaasnu kasii dhaqaajinaynaa sidii ummadda loogu adeegaya shacabka jamhuuriyadda somalilan aad baad doctor oo mahadsantahay bal aan eegna khadka xiga hallow السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جعل حسيني يا دكتور هو سلام يا. وانكا قادنا ولا له. والله waxaan weydiinay laba su'aalood. haye. su'aasha koowaad waxa weeye caanaha ma aragtay laga keenayo hawiiga fadlan ka keenayo. waxa in badan la sheegaa waxa lagu soo taraa capsule si aanay u dhanaanin. haye. capsule-kaasoo dee dawo ah oo garanaysa oo dhibaato keeni kara haddii dee si caanihii lagu daro shaybaadkan uu sheegayo doctoorku ma ogaan karaa oo ma sheegi karaa caanaha kiniinka lagu daray ma qabanaya hadda imika labaad waxa weeyaan walaalo waxaa jirta dhakhtarrada sida caadiga afrikada in badan ka jirta waxa weeye dadku waxay isugu yimaadaan magaalooyinkii waaweyn bay yimaadaan haye masalan goob baa lagu qoraya dhaktar waxaa la leeyahay degmo tuuladaas wilaayada uu iskaga imanaya mushaarkiina wuu ku qaataa meeshana tegi maayo dabadeetana waxaa dhacaysa dhakhtar hebel baan ku qoran meeshaasi meel la taga maayo waa baadiyo magaaladan qabowde iyo waxaan ku weli waxaa isugu toosan yahay buu doonaya inuu iska joogo haye markaas asna mas-uuliyaddii wasaaradda ka saarayd ma ku dabagelaysaa ma og tahay inuu dhakhtarkaasi tuul magaalo heblaayo lagu qoray ama tuulo heblaayo lagu qoray inuu joogo yaa dabagala yaa ka warhaya labadaas su'aalood ayaan weydiinaya doctoorka marka insha allahu tacaala dee khayr iyo wanaagna waan isku ognay magacayga waa cabdilaahi xasan aad baad mahadsanta walaalo haye doctore inanka cabdilaahi xasan nala soo hadlayn kastaa inoo sheegin meesha ku sugan yahay haddana aad mahadsan yahay haa arrinkaa uu sheegay horta su-aasha hore ahayd caanaha qalabkan lagu baadho milig tastiga ma lagu ogaan karaa heerka in wax lagu daray iyo in kale haa waa lagu ogaan karaa oo weliba heerka contaminated-ka ama heerka waxaa lagu daray ay taagantahay uu soo qoray markaa horta taas waa mid oo qalabka waa lagu caddayn karaa waana lagu ogaan karaa oo marka horeba waxaa loo sameeyey in lagu ogaado heerka caanaha waxyaabaha dadka dhibaateynaya ku dhex jira heerku leegi hadday wasakh tahay haddii dawo caadi oo la isticmaalo tahay heerka la isticmaalay ku jirta saasaa lagu ogaagaya su-aasha labaad ee ah ka imaanshaha shaqada ee dadka dee inagu hortay wasaaraddu intaa dadka guudkooda bay xisaabinaysaa ee ah in qofka halkaa in meeshii lagu qoray in laga howlgalay in halkaa loo magacaabayo qofka bulshada qofkiina uu cilmigii bartay mushahar nastaa ku qaadanayo laakiin wixii imanka waxaa la bilaabay dardargelin iyo dabagal in waaxdii shaqaaluhu iyo waaxdii caafimaadka xoolaha iskaashanaya ay mar kasta madaxii gobolka garaacaan madaxii gobolkuna uu saa kusii garaaco degmooyinkii markaa qofkii markaa degmada ku qoran ee shaqadiisii dayacay waa inay soo gudbiyaan bulshada deegaanka ku nool oo kii gobolka ama halkii xaruntii wasaaradda ay u soo gudbiyaan oo in halkan iyagana lambarooda insha allah uga baahin doono wiigaga dambe haddoo alla ka dhig doctor laakiin wasaaraddu ma samayn kartaa qof kormeer guuda oo soo wada mara gobollada ay xafiisyadu idinka wada furan yihiin oo ogaada maxaan ku dhahday oo isagu warbixinta wasaaradda u soo dira kuwan waxba yaanay soo dirin kuwa iyagu ninkaa kormeerkoo keliya uu isu soo wada maro intuu gaari qaato xafiisay hortay bil kasta imika waxaa la sameeya ama labadii biloodba wasaaradda waax ka mida ayaa kormeer baxda kormeer shaqo caadi ama waaxda IT-ga ha noqoto ama waaxda qorshaynta ha noqoto ama waaxda fayadhowrka ha noqoto ama waaxdii kale wax soo saarka ha noqoto ama waaxdii caafimaadka xoolaha ha noqoto markaa kuwaasaa la kulmi lahaa dee waabay la kulmayaan degmooyinkii way tegtegayaan markaa caadiyan kormeerkan wuu iska jiraa badee hawshii wasaaradda socota markaa inta badan inamada degmooyinka ku qoran in qof degmadii ku qornaa la waayo iskaga tago badan ama dhacdo ama gaabs shacabkii isagaa iswaaya oo qofkii magaaladii ama degmadii ka dhex garanayn dadka
ayaa dhici karta qof ag joogo wasaaradda xanaanada xoolaha u qaabilsan baa qofkii reemiga dadkeenu haddii aanay qof ka sarreeyo la jooga xafiiska aanu markaa arkaynin sax sidii la doonaa la yeelaya taas waa la isku geeyo Afrika waxaa kaloon kuu sheegaya in su-aashan maxaan ku dhahdaaye caanaha mishiinku ama shaybaadhku ma kala saarayaa in caanahan kalinooluhu ku jiraan iyo caanahan tarkala saliinta ku jirto hortayde midi waa dawo oo waaba halis oo iyadu waa goon midina waa dhirtii caadiga ahayd ay xoolo cunayeen sida kuwa kalaba cunay marka wax kale isagu kalinoolaa mishiin kale kalinoolaa soo saari maayo oo kalinooluhu dee wuxuu ka dhigayaa dhirtii caadiga ahayd cunayeen ayuu ka mid tahay ila wax halis dadka ku amaha inta dee weli dee wax lagama soo saaray inuu halis ku yahay caanihii ama la baaro dee weliginba waa la cabisa laakiin dee iyada dawada caanaha dawaysan iyo waa goori haye doctor balanta khadka kale aan eegina hallo salaamu calaykum waa halkaad ka soo hadlaysiyo magacaaga doorkiyo qiisadaad una salaamaya magacaygu waa mukhtaar oo ku sugan degmada Baki ee gobolka Awdal garaana deegaanka Liisaadi waan ku soo dhaweynaynaa Victoria wuxuu ka shaqeeyay waxqabad badan oo qabatay wasaaradda xanaanada xoolaha Victoria waxaan leeyahay wasaaradda xanaanada xoolaha anagu ma aragno dareemaraasi iyo waxay qabanayaan waayo markaas ay marteen mas'uuliyiintii loo magacaabay degmada Baki haye inaan ka mukhtaar aad iyo aad u mahadsanyahay ee jooga degmada Baki waa sidii waa cabashadii markii hore oo taagneyd oo kale xalkeedana insha Allah Ilaahay ka dhigo wuxuu noqonayaa degmada Baki waxay ka tirsan tahay gobolka Awdal degmooyinka ugu waaweyn xafiis baan ay wasaaraddu ku leedahay xanaanada xoolaha marka inankii hadduu inankiisa u waayay lambarkayga aanu sheeg insha Allah ay soo garaaco ana inanka degmada u qaabilsan wasaaradda xanaanada xoolaha imika halka u joogo degmada ku xulaayo insha Allah Ilaahay ka dhigo haddii Ilaahay dhado khadka kale bal aan eegno hallo السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته والمقعد يالك تكسو هاد ليسي سؤال دكتورك ويدينا سين تبا إسراعي والمقعد هو خضر علمي واحد شوقة تولي يرو لينا كوه شوقة وكتلتم قبل كبني قبلي هيه والدكتورك واحد ويدين لها إلا جسد فمية إيه هي قلا ها واحد هو موهش حق الحولو ده موضوع ما أنت كمان وهاد ساكا كمان وهاد لينيني إن شاء الله مركل أن كسو قاطن طونا يمدي دكتورك سؤالك لو هايسا سؤالك كلا ويديني يا وحوي ها قال كل نورا لينا ده فدر مكبحة هاي حاجة يسوي بيانو لجيم واحد بين حلي وخلا وحولا ولا ينمكي هاي كايرو أنا كوكيني يمو يعني هاي يبقى كاتانا تصدق على بالله إن شاء الله هاي هاد بعد ما هتسنتها هلو خدك حيجة هلو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته والله magacaygu waa shacayb midoo ka saameeyay degmada Baki ee gobolka Awdal barnaamijka gabagabada way gabeynay runtii Dr. Ibrahim wuxuu sheegay dhammaan sanadkii tagay wax qabad fara badan ay wasaaradda xanaanada xoolaha dalka Jamhuuriyadda Soomaaliya ay qabatay haye runtii wax badan oo ka jiraan qaybo badan oo aan la gaarin way jirtaa oo aan la gaarin laakiin sanadkan 2022 wasaaradda waxaa soo jeedinayaan hal digniin oo in la gaarsiiyo wasaaradaha iyo nimanka xoolaha lagu daweynayo tuulooyinka runtii gobolada xoolaha way ka fog yihiin tuulooyinka ay ku badan yihiin meelayaasha tuulooyinka waa in la geeyaa nimanka iyo daawooyin xoolaha lagu daweeyo la gaarsiiyo baan sanadkan kula kelina wasaaradda xanaanada xoolaha aad baad mahadsantahay haye doctores su'aal baan ku weydiinayaa in haddaba maadaama waxaasoo maxaan ku dhahdaye waxqabada ay wasaaradda xanaanada xooluhu samaysay iyo qaadkee sanadkan baa isleedahay hirgeli maxaa talada soo jeedinaysaa markaa haddaba bulshada aduguna hortay talada ugu weyn bulshada soo jeedinaya waxaa weeye inay ku xidhnaadaan wasaaradda xanaanada xoolaha oo qofkii intaan hortay halkan cabashada aanu soo gudbin uu raadiyo qofkii degmada ama gobolka u qaabilsanaa wasaaradda inankaasi saa uu sheegay tiimamka horta dee tiimamka marka horeba magaalooyinka ma tagaan waxay tagaan degmooyinka hoos yimaado magaalooyinka dee xoole ma joogaan laakiin waxaa laga yaabaa qofkii inay iswaayeen ama adigu wax dhaceen marka adigu ay khalad jiraan ama qofkaasi aanu la kulmin laakiin gobolka Awdal aad iyo aad adigu tiimam badan loogu diraa waana hawshiisu siduwa gobolkaasi si fiican bay u socotaa
wixii insha Allah duulaha ka dhiga gaabisa ama bulshada qofkii wixii cabatimana insha Allah wasaaradda xanaanada xoolaha waxay ka qabanaysaa markas wiig kasta wiig endiga ama maalinta ugu horeysa sabti wasaaraddu waaxda caafimaadka xoolaha waxay yeelataa shirar lagu dardargelinayo shaqada wixii soo cusboonaaday wixii cabashaa wixii baa lagu hirgelinay marka insha Allah duulaha ka dhigo wax kastoo khaldamay waxba laga qabanaya wasaaraddu mar kasta waxay u heelanta oo ay u soo jeedaa inay wax ka qabato horumarinta xoolaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo khayraadka badda aad baad doctor mahadsantahay Dr. Ibrahim aad baan kugu mahadcelinayaa sida wanaagsan waqtigaaga noo soo siisay intaas ayaan dhageystayaal ku soo gabagabeynaa barnaamijkeena xanaanada xoolaha barnaamijka mid lamid ah waqti kale intaan ku kulmi doono dhammaantayo farsamo yaqaan iyo wariyaba waxaan ku dhaafaynaa saasi nabadgelyo amaana Allah ismaqal dambe xiiso leh